waxaan ahay Faadumo Xiish kana mid ah ardayda Sodma Academy wax ka barata gaar ahaan video editing-ka. Maanta waxaan rabnaa inaan isla aragno qayb ka mid ah basic video editing-ka gaar ahaan sida green screen muuqaal looga jaro. Haddaba waxaan isla aadaynaa computer-ka. Marka ugu horeysa waxaan soo kacsanaynaa software-ka aad doonayna inaan wax ku edit gareyno kaasoo ah Premiere Pro. markuu noo soo kaco Adobe-kanaga waxaa u baahanahay inaan sameysano project cusub. Haddaba waxaa leenahay new project. waxaan doonaynaa inaan magac u sameysano ama aan magacoono project-geena. waxaan ku qoranaynaa green screen. waana inaan kasoo dhiganaa meel computer-kanaga ka mid ah. Okay, videos are dhiganay kadib select folder baa leenahay create okay halkani waa muuqaalka ugu horeeya ee ku soo baxaya markaad Premiere Pro soo gasho waxa loo yaqaanaa workspace qaybaha uu ka kooban yahay qaybtan ugu horeyso waxa loo yaqaanaa project panel ayaa loo yaqaanaa waa halka laga soo gelin doono muuqaalada iyo sawirada aad doonayna wax ku sameeyno waxaan u baahanahay sidoo kale inaan sequence sameysano qaabka u fudud sameyn karno Ctrl+N oo shortcut ah kadib enter. Okay, sequence-gan ii sameysan baa rabnaa inaan muuqaal ku dhex sameyno. waxaan rabnaa haddana muuqaal ku jiro computer-kanaga inaan keeno application-ka. waxaan leenahay double click. project panel-ka waxaan ku leenahay double click ama shortcut waxaan isticmaalaynaa Ctrl+I. waxaan soo qaadanaynaa muuqaalka green screen-ka ah har baan saarnay kadib open. halkan buu noo imaaday. Okay, muuqaalkanaga waxaa geynaynaa source monitor-ka dhowr qaab baa lagu geyn karaa. qaabka ugu fudud waa drag and drop inaan ku sameeyo. Okay, source monitor-ka waxaa lagu sameeyaa muuqaalka in lagu jarjaro qaybta ugu muhiimsan oo aad doonaysid inaad sii qurxisan aad soo qaadatid. Okay, 10 seconds camal aan soo jaranaynaa. Okay, halkaan baan kasoo bilaabeynaa. markaad doonaysid inaad soo jaratid waxaa isticmaalaysaa mark in. Okay, 40 seconds aan ka dhiganaynaa. kadib waxaa isticmaalaynaa mark out. intaa baa doonayna inaan soo qaadano kadib drag video. haddaad doonaysid inaad weynaysid waxaa leenahay plus. muuqaalkanaga green screen-ka ah waa midkaan. waxaan rabnaa marka inaan green screen-ka ka jarno waxaa isticmaalaynaa effects. falaartaas aan furaynaa. halkan waxaa ku jira effects. waxaan ka tegaynaa qaybta loo yaqaano video effects. Okay, waxaan kasii dooranaynaa keyin folder-kan. waxaa ku jiro ultra key effect la dhaho kaasaa doonaynaa marka inaan ku jirno green screen-ka. kadib effectiga laftiga la qabanaynaa drag and drop waxaan kusii deynaynaa videoga. Okay, waxaan tegaynaa effect control oo source monitor-ka korkeeda ah. effect control waa kana. kadib waxaan raadinaynaa effectiga aan kusoo deynay muuqaalka ama muuqaalka aan ku dul deynay magaciisa. Okay, magaca ultra key waa kana. qaybta hoose qalinkan baa kasoo qaadanaysaa. kadib qalinka waxaa dhag ku siinaysaa green screen-kii. kadib wuxuu noqonayaa waa black. means that waxaa ka jaray color-kii. background green-ka baan ka saaray. Okay, hadda muuqaalkanaga wuxuu u diyaarsan yahay sawir ama muuqaal kale inaad gadaal soo geliso. marka muuqaalka la soo gelinayna gadaal
waxaan isticmaalaynaa muuqaal anaga hor usoo diyaarsanay ee computerka naga ku jiro. Control plus I baa leenahay. kadib muuqaalka dooninay waa kana open. double click baa siinayna si uu source monitor u tago aan uga soo jarana qaybta aan dooninay. asna waxaa uga baahanahay 40 second in yar oo soconayso. okay waxaan leenahay marking. mark out. intaan rabna inaan soo qaadano okay muuqaal kale soo hoosgelinay haddaba u baahana waa isla ekeysiin karnaa qaybta u dambeysa videoga geenaysaa qalinka kadib laftigaa la qabanaysaa waa soo yareynaynaa. okay waa isla egin hadda. okay qaabkan fudud waa qaabka looga jira green screen muuqaal wato inaad wax kale soo hoosgelin kartaa ama sawir ha noqdo ama video ha noqdo.